اللي طبعا أرضيه وكقل انتبيه معد كعافمات كقبل كصول أيلا قدونسية شهادين كودا وحنا مناسبة سوى اللوسو أقاسمية كان عضي هوتيل حمدي مقالة الله سعانود halkaasoo ay ka soo qayb galeen waxgarad culimo ardayda qalin jabinaysay waxaana munaasabadaasi si weyn uga dhex muuqday dhaqaatiir marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadashay Amina Xasan Xuseen oo ah maamulaha dugsiga tababarka caafimaadka ee gobolka Sool waxayna uga mahadcelisay dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadan qalin jabinta ah iyadoo sheegtay in dugsigani wax weyn ku soo kordhiyay gobolka isla markaana dafcadani ay tahay tii labaad ee ka qalin jabisay بعد تبعدي كل لغات سكول عافمات بحث حدود عافمات كسوق الجلسة طبعا هري وحنا نضطين تبوي وهاي حفلة الكواد غادي يكون جودي قوي كمان تبيها تدخل الكلية بعد النواد بعد اللغات بعد اللغات كنت كعبتي وشيء صدق لي آخر واحد هاي بعدي هري لحية طبعا بعد هذا النوع اللي تشبين الساعة ما حفلة دي تشوفه هذه أنا قرأ وهو ربوي سكول كحاجة تسيو هذا سكول لحسن وأيو جرا حوي أبا ولا مش حسن هاي لو هاي إنك صدق بس جرا سكول كلامه يكون يستدي في شيء لبي هنا في شيء أبرد استدي لا تكيدي أيام أساسنا جروب يقول رأيه وحنا قالنا لبي يكون في شيء استديات في شيء تضبط شلون أيام قالنا جروب يقول رأيه كقدر تبي استدي فضلي أفكر لو قدر تبيه طبعا جروب أيام كتير يقولون ما في لوقت تبيه وبشي مي دروس ولد ما في مثلا رد ولا قلت شيء سووا لي إنه وتسويت سكول قلت شيء حتى نقول هان كورهمو سكول كوه فقاهي أفر دفعات ونفسنا لما قلت شيء يلا واحد كشرة وأنا سنة في ودن بيه ستحافظ أي معيار وأنا أي سنة في هوري كشرة حاول سكول فقاهي لما دفعات ومدرسين كالقالي ومدرسين عاويان ومدرسين وسنة في جروبي هو قلت شيء يقول لي تكون أعطيه أنا يميت ملوينك فوقها صدق ملوينك وكفوبية هاي صار سنة عين qaar kamid ah waxgaradka culimaadudiinka iyo waliba dadweynaha ka soo qayb galay ayaa munaasabadaasi ka hadlay iyagoo si weyn ugu mahadceliyay dugsiga tababarka caafimaadka ee gobolka Sool waxaan maadna ku jeedinayaa in la igu soo dhaweeyay mikrofoonka inaan ka hadlo anigoo aan leega dhigin qof martaa oo banaanka ka yimid isuna haysta inaan ka mid ahay laasanood runaaantii waxaan aad iyo aad hambalyo ugu soo jeedinayaa dadkii ka soo shaqeeyay inaan halkan in suura gashanaan imaado oo aan ka dhigo duruusta caafimaadka kana shaqeeyo gobolka arrintaas waxay ku timid laba siyaabo tan ugu horeysa anigu doortay in gobolkan Sool qaas aan laasanood aan imaado ka shaqeeyo anigoo arkay in uu ka jiro horumar jacayl iyo organization wanaagsan oo lagu soo sheegay marka aan joogay UK ayadoo isoo dhaweeyeen ay iga sheekeeyeen gobolka waxbarashada ka jirta horumarka ka jira tuusiyada qiimaha leh oo ka jira caafimaadka ka bacdina anigu aan go'aansaday in anigu ka soo qayb galo socodkaas iyo waxbarashadaas iyo horumarkaas meesha ka socdo oo tababar iyo shaqada kamid ah بعد كعافات كورنتي وحبوحية باهي أي دتكو قبيل أورنتي أها إلا هذي كراقف أتقطع وكدوية دوادي أساسية هيد الله بحمد وحان كلا عن هذا كقرية وندي شيء كدمر كان قسم واحد هذا initial assessment تيجا أرضها دي تبعتك عافات كإن يهين أقوانته تهاي من بوكو سمان كلا من أقوانته بوكو سمان كلا أيها هم كقرية waxaan kaloo rabaa in insha Allah taala ku dhiirigeliyo ardaydaas aqoonta ay heleen inay tahay mid runtii adduunka caalamka ka jirta oo ay ahayn mid la soo dhoobay ama la soo ururiyay waa mid leh reference email loo celiyo marka maadka caafimaadku runtii waxaan rajaynayaa inuu arrinta iyada ay tahay arrin ku guuleystay waa inay xal u noqotaa mushkiladda qofka haysata haddii aqoonta uu leeyahay aynan xal u abuurin mushkiladii qofka haysatay aqoontii ana samayn mayso marka waxaan leeyahay kow adeerayaal abtiyaal ilma adeerayaal aqoontu xal ha u noqoto wixii aad u barateen taas waa hal qodob oo aan doonayo inaan dareensiiyo qodob kale oo kaan ku xawayaan
wax kasta oo qofka bini'aadanku qabto waxa aasaas u ah wax shaygaas waa kalsoonida qofku hadduusan isagu isku kalsoonayn qof kale ma caawin karo qofka aqoonta leh ee ku kalsoon aqoontiisa ayaa cid kale caawin kara ولو قفوا عوودي كرائم هذا وحن واحويه نجدا وحن وافعيه سمع مركا وحن كل هذا دارنا يا دلنا يراdan هذا قلن جبسي إن أيشان كو كرسوني لبا إن يعودوا إليهن إن أي قالن كران كرسوني ده كسمنا كران دتك أنت أعطي فرحتي قلت هاي أنا ما أنت إن كلاس غيب قوا عفلتنا تكون قلن جبين إنسان المدة كوان الله يعني وحوي وايدين تهنئة دينا يا وcongratulation وحملها هاي قلمي جينا لها كبدو منكم مدة يدين كوا إذا نفعت وحفر حالي إن بدر وكمل عرض إذا مركان سوى أبو وحنما يقارن بقتاضو بلا يوجد وما أنت وحوي تكسب غاصب يحاس سارة إلى جامعة ما أنت مرة يا معدكي inay ka qalin jabiyaan farxad gaar ah tahay macadka iyo jaamacaddu runtii waxa ma kala aha oo one team maamulkeeda ogtihiin oo ardayda jaamacadda aha waa wada shaqeynaa isweydaarsi baa naga dhaxeeya macallimiinta naga dhaxaysa waxa weeye isku meel baan u soconaa labada team leader ee mobilada jooga waxa weeyaan waragii meesha ka baxay نمو يا عبد الله موسى سيد أنا حاجة واحد شو جا أمشي أشوف حواي يمكن بوقت على يوسيد كنا أو كلي لو مسكر عليه إن شاء الله لو يقولوا بتشوا كبحي قبلي كبحي هل كبحي الحمد لله تواصل إلهي وحلو ما هنقو ما أنت حدي أنا هيصنو ساسا باهي ده عفمات أنا وزوج شو وقت وحب ذلكوا وين لا أستويه صمري باهي ده عفمات كأنو تاجنين ساسا وزوج شوني تمر خلاص مركي أمسيات كيو خرق شغالي سي أي أكادين تلاوة الدنبيل السود لها ونقاط لكن إن شاء الله هذا روتينا أنا قوة بضفره هذا روتينا وهوي أنا وهذا بقى يرس كيو خرق أو دن وجبوري وقت كده وجوده ماضي وهل أنا وبسيطان كشغلنا وهل دنيا تضيع يا أو خلقه ولا طبعا سكوتنا يوم شهر سينو كباستي بيلدينج كده أنا رسول قف لو من يدويني وإنه هاقف لسان هذا وإنه هذا قف لسان وقف كلا برتريا هنا وحلا سياتا برا تيله وحنا سوينا سوبرفيشن تيله بانسوينا أنا ومنهن إمجاد هذا عشان كذا كاتو كلام تاسوا غضب إن الحمد لله رب العالمين وحلاها اللهم هنقو إن ما أنت هذا نوفر ديان بيع صب وصاق وذا يكون هرنا بله الوعي توه الحياة ترى الحياة وحلو بهاي السنين بين وحنا الصلاة بلو بهاي موسى كم ده أرنيه موسى أمانة صارن وحن بيرتم صاق وعسى موسى صاق وعسى بيتكلم صاق وعسى مركب طلع هذا وين وصار ده عافمات كيو صاق وعسى موسى حوالي أمسية كذا تذكر وين الحياة وقعنت له حياة صار ده اللي شغال كليه ما حصل ميك سنس وين أمسية الوقرة وين الوقرة في المثال الوقرة وين الوقرة وين الوقيبية أنا أذكر الوقيبية سكاسة أما كان مشاهر وين الفرنت كوتشوغان وقف هذول فيلك عافمات كوتشرو وحوالي أنت أفوا كلوا مساقط كلوا مسو أنا الوقت بينا قلتان إذا أمانة لا إله إلا بري إيه تقول قال لي أمانة حسن خساريننا أمانة حسن وحابات كوفران وهو نفسن إذا كو قبل كباهي ساعات ما كيس قطرة أي أمانة على وفران وحويا إذا كو جودي قال لي وحنا اللي بري وأمانة إله والد كان عنده بحنا وأمانة إله بقى راس عطية قبل كواحد هو بري وأمانة إله بقى راس عطية أمانة اللي بري وإذا الوقت بيصير في السنة وأسوي صفحة أنا لا أروح كي أنا قفل الرول بريه وروح سلطة وسلام قفل اللي بنا قبل كيسة وحي وكيا هي ومبيش كلنا كنا كنت عددا كان تبيسي معك ينعلمين تودنا وحلاها هي حكا حرينا هرب السيواد أديك وحلقها مرة أديك إيه هذول نتاع كرسوناتي هذا عدو سوق كرسون وحبق المقام كرتي والو عايا والو ماغيا تنير معي حد بالغويا الكير قيلة بدن الحوها ولا كان حاجة مسك كسوة قلب بالغويا عدو سوق كرسون وحا عاد برطيك كرسون ما كان أصلا نقول دونتها أخو حق بكرة جامعات إنه قال له حلاها حدي أيديك كرسو قاعدين وعايدين تيادين حاجاتين
oo dadka soo jiidin oo wax walba isku dabaridin dadku taariikhdaas iskaga jirayaan idinku dadaala qolyahan soo noqday nin walba gobolkiisa waxaa wax ka dhigay ninkii soo noqday gobol walba waxaa wixiisa dadkiisa wax ka dhigay qofkii wax yaqaanay ee u soo noqday halkana laga tagaa laf baa jaban waxaa laadayaa gaalkacayo neerfaa haya waxaa laadayaa xaaji gaboose halka ay xanuunaysa waxaa intuu way joogaan gobolkii waxaa ka mid ah inuu soo saaray arday nasisha dadkii daalay ee hore caafimaadka ku soo jiray arday nasisha ayuu soo saaray oo ay noo muuqato magaalada inay camimeen meel walbana ay taagan yihiin goob kasta adeeg uga baahatana aad la kulmasid arday ka soo baxay macadka caafimaadka ama arday dhiganaya oo adeegga waxay kaloo qabteen inay daboolaan dhammaan baahiyihii caafimaadka ee looga baahnaa qof firfircoon oo dhallinyaro ah inuu qabto macadkan wuxuu soo saaray arday runtii tayo leh xag akhlaaqiyaad u dhisan oo runtii aynaan waxba ku misaali karin oo waxyaalaha laga sheegay macadkan waxaa ka mid ah haddii maca ardaygu lagu arko waxyaalo dhaqan xumo ah in laga caydhinayo meeshaba runtiina waa go'aan adag oo xaasima oo uu qaadan karo qof go'aan adag leh arrinkaana aamina xasan xuseen waa uga mahadcelinaa insha allahu tacaala waxaynu la wada soconnaa ardaydii hore uga qalin jebisay inay haddeer public health dhiganayaan oo ay digriiga wadaan kuwa kalena insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa takhasusaadyada kale ee lasoo kordhin doono iyo kuwan kaleba in loo soo kordhin doono aanu jaamacaddana ka codsanay inay soo kordhiso digriyo kale oo ku saabsan barnaamijka caafimaadka qodobka ugu muhiimsan ee hadalkaygu muxwarkiisu noqon doonaa waxa weeye gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddaynaan dhammaanteen barnaamij walba oo la qabanayo hadduu caafimaad noqon lahaa iyo hadduu wax kale noqon lahaaba ayna ka wada qayb qaadan waxba inooma qabsoomayaan qof kasta oo inaga mid ihi waxbuu qaban karaa waynuna isu wada baahannahay ardayda dhammaysatay barashada caafimaadka ayaa iyana halkaasi ku soo bandhigay riwaayad markaasi ka turjumaysa gargaarka ay dadka u fidinayaan in badan naftayda ku daadasha damiirka ka dhaadhasha gudooda ayaan rabaa inaad noqotaan dad wacan oo duunyo badan dacfiga iyo necab jahliga dadaalo aan habqabin dalkoodana mahadiyo intay dib u fiiriyaan barwaaqada duugan iyo dareema nimcada dhextaal intaas waa daafuriyo rabina diinta u yasiro intaas waa daafuriyo dareensiin iyo wax sheeg wakhtigu yuu ila durkine ujeeddada aan u dogo dayaxan soo nuurayee dalkii wada kaahiyee aqoontu ku duugantee qalbiga daawaynayaa naftaydan dubaaqayo darmaanahanaan rabaa inaan dood wada gallee adigoo awdiiriyo diyaar mau tahay midhka war maxaanu diyaar uga ahaan weynay saanu maantuna kuu suganay baanu daal la dhicnay markaas haddana waxaan leedahay diyaar mau tahay midhka war diyaar waan dhaafayo ilaaha igu daahayo kelmadaha damacsan tahay dibnaha kuma hayn kartide ninkani kuba daaliyaya ma duushaabaan lahaa sana kuma diidino warkaagaa dahab aha calaashaan fuluus haddeerna adaa damco dabuubtii maansadiyo su'aal kugu duuganbaa dushaada ka muuqato ayaan kuu daynaya waxaanse intaa ku daray hablahan daymada u roon dirayskooda iyo wejiga ilayska ka daaranba indhuhu ku daraan dareen naftuna way duukhaysaa dakaan la oo dureemo ku foofayso baruu dushu xoodanto xareed dacal taaganba madaa'uus iyo haldhaa cagaar ku dalxiisayo intay doox wada mareen xarragadaan shulaya war joog waaryaha war ma niwaalan baa tahay war maxaa nawaalay war maxaad nooga horsan maxaad u amaani ina gabdhaha war amahay ama amaan anaa hadalka wato anaa maanta lahaay maxaad iga horsan war balnimiyo nasdadankaaya war maafkaagan ku hadlaya afkaagan ku hadlaya war hadalkiina gormaa la isku qabsan war anaga ka wala hadal ku dhiibanee aqoonta la doonayee dunidu ay ka hirqataa dushooda ka muuqato duruus la cabsiiyayo
dadaal lagu keenay baa naftooda ku duuganoo difacdihii qalin jabshaa dhammaan lagu diirsado dalkeennii wax u taro dadkeennii mahadiyeen alla hadaayee markaa iyana way daba socdaan ugu dambeyntiina isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr. Muuse Geele Maxamuud ayaa kadib khudbad dheer oo halkaasi ka jeediyay wuxuu mid u guddoonsiiyay ardayda shahaadooyinkooda isagoo kula dardaarmay inay dabaqaan waxyaabihii ay barteen waa sidii la idin sheegay dibcad hore ka baxday tan waa qoladan waa difcadii labaad anigu runtii mid xogaa nima raali gelin oo waxay ahayd marka ardaydu ka baxdo meesha horta labada sano hore inay ka soo shaqeeyaan dibadda inay ka soo shaqeeyaan degmooyinka iyo tuulooyinka waaweyn hadda waxaad moodaa mararka qaarkood inaanan dareemayn xogaa inay noo soo baxeen sidii aan wuxuu rabnay wax loogu soo baxeen waayo markay yidhaahdeen markaanu ka qalin jabin halkan baadana iskuul daba dib u sii galaynaa markiiba annagaa shaqaba qaban halkaas runtii waxaad moodaa inaanay dhadhamin baahidii la qabay inay wax ka qabteen qolyahaas soo baxay runtii xaqiiqadu saas weeye barta qolyahan cusub markaa waxaa la yidhi awrka maxay awrka dambe ka hore hoggaan qaydka sii yeeshaaye qolyahan dambe waxaan ku codsan lahaa inay yar yar sidaa dadka ku qasbin waa isku dayaan waa inay shaqeeyaan marka hore sidaa markaan leeyahay waxaa la yidhaahdaa markii hore gobolkan uu 3 degmo ka koobnaan jiray kabacdina 4 degmo oo kale la bixiyey 7 degmaan uga jeeda cala kulli xaal 7 degmo markaan leeyahay 12 MCH baa ama degmo magaalo madaxda ha ahaado ama tuulo weyn ha ahaadee baa gobolka jira 12 ka 6 baa dibadda والله سبحانه صدر ربع في ماذا أما بيرها إنه هيلث بوست وصدرنا يعني طبعا بيرها تذكي الله عليه وخير الوقت هو كوير عند كاضي أعرف أنا بقى كتجي يعني واحد وجه هذا بعدين نسويسه مثلا واحد تلوينك قبلكم واحد مريان حمايا واحد degmooyinka ee marka la macalsan lagu daro 7 lixdan iyo xogaa bay marayaan intaas intooda waa weyn ilaa 40 markay ugu leeyato waa tuulooyin aad u koray waa hore u jiray muxuu ahaa waa weyn bariga hore waa weynaa intii damana sii korayay iyo qaar mar intii burburka ay asaasmeen kaba xalaya batay ama koob hormaray kuwii hore soo jiri jiray waxaan wajahaa baahidii caafimaad horta waxay taalaa dibad marka xagan loo eego marka waxaan deesiisanayno aan ku farxayn halkan aan waa tumnaayna aad bay kamid ah soo inay saaruntii